والله بالله طلع مريكان يوروبا كبغدين كل جد حل دبانada wasiirada madaxda ra'iisul wasaaraha ayaga dhan waa fulayeen ayagoo fulaynimadan la soo taagan dalka laga qaadanaya wadkuuriyo waya xasan sheeqo u tag Pyongyang ka dag fulayata maraykanka ka baqay jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960 ka dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtay ilaa cadanka goosanaya horeyna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso Soomaaliyoon dawlad lahayn Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto maanta badan xoog ku gaaraa waa dareem waa riyo aan rumoobeen waana lagu soo tijaabiyay badeena horaana lagu soo tijaabiyay nalooga mara guuleysan tanna looga guuleysan maayo الحين الشيخ وهرتا أديك وريه BBC دو شقية متهيد أنا قولك إن نوسو جود بسيط مرمنا وحرمنا إن فعل نوشيك تد وحي للصمين لهاي إتوبي إن نوسو حد جودبتي لبع علي أو صومالي اسمه دينيس إتوبي إن ضل كان صاغ شيء لعكت إتوبيان كم قيابة كم الصومالي لقى استعماله لعكت كيان كلغة كيان كقيابة كم الصومالي لقى استعماله أنت صدنا لبع علي اسمه دينيس إن إتوبيان كبدين إنه قاطع وربو waliba inuu ka baxo heshiiskii bad qaadashada uu diiday laba cali isma weydiinayso mudane madaxweyne marka anaga shir jiraa'id oo u eg wariye inuu noo soo gudbinayo oo kale marrabno maanta waxa ku wada tusaalayaal madaxweynaha tusaale u wada Ethiopia waxay daris la tahay Eritrea Ethiopia maray damacday inay bad ka qaadato Eritrea waa anaga dal anaga naga yar waa Soomaaliya way ka sii yihiin waxa ka taliyo dalkaas madax ka ah nin jabhad ahaan jiray اللي يغني السياسي أفواركي أن سدح مد بو اسكجي على إثيوبيا سدح مد واسكجي علي ومد كواد إذن كيسو دت كيسو شعب كيسو كسمي موبيليزيشن دت كلا صعد موبيليزيشن وحواي لأن يرضى ماشي دربي اسكفو فقصو أيو أن براروجية أو هوب كلاقاتي مركز دجالك وبلاود قاعدة بلاودتي واحد جوية إثيوبيان كي كعرسي لوكاس وهي عاين شعب كدودوينه هي عاين The population of this country would be willing to defend the sovereignty of this nation with any possible means. Ethiopia بدأت أوجا تميز بدعس أو قرح بقى. مد لبعض أوجا جولستي وهاي هاد أفكار كلول هذا كلول مدن مدحوين حسشاب هذا كلول سياسي أفواك ورهاي أي كن حيي أبي أحمد الحقوق اللي إنه نجاس هشيس لقى الأسوق قص الأسكاك فريست تصالح هو ذا وكنا سياسي أفواكي أو نهايو wax la yiraahdo xabad joojin ama nabad haba yaraatee ma jirto Ethiopia ayada dagaalka bilowday dagaalkan iyada lay ka bixi karto anaga wuxuu yiri dhankeena hal wadaan oo furan wadadaas oo ah dagaal nabad haday dhaceyso xabad joojin haday dhaceyso cidaas looga baahan yahay horta hadalkiisu waa kana ildiis We don't need to declare a ceasefire. War has been declared upon us and a ceasefire would hold with those who have declared war. وما قشع ملينا هذا لازم كل اللي إن بدل بعد أو يعني ولي وحكي جرا قطب كلا بعد أو هاي إنه أفك إسكجي عليه إثيوبيانكي هذا الكلام وهاي سياسي أفريقي وهاجر الإثيوبيان كذا يعني ما أنت أصلا حتى كوسك جام كريم إنه يقولوا هذا إريتريا إن هذا لو ده سياسي أفريقي وحكمت هاي دل هدو فعل صمايو تصالحان إثيوبيا هدو كوسو حد كتبته فيريا فعل هدو فعل معني سو هواي dal inuu ciidankiisa si amar la'aan ku soo geliyo dadkaadi in la dilo xuduudkaadi iyo qadiidaadi iyo dadnimadaadi iyo diintaadi wixii oo dhan lagu xadgudbo baddaada qaadana xitaa inay afka ka dhahaan waa ficil adag waay ficil walbo wuxuu leeyahay falcelinteedana waa inay ahaataa mid kulul xabad rasaas ay ka dhacayso waa kana hadalkii siyaasi afwaaki ildigiisu You see, there is always a reaction to an action, especially when it's an act of aggression. يعني وحربا مدحوينها إنا وعقلي علينا قلنا اللي يفهمي أنا واتحاجر سنة مدحوينينا حفيزك مدحويني مدى الصوماليا بيك ريسبكت ومدحويني شرفوا النجم مدنيا لكن سي هذا الصعدان وهي سيبرا روجينيسا سيدي رجلينيسا أبي أحمد إنه تلابوين كلا قاضو وكسكس لو كان وقاضنا ما حيلا أف إسكجم علينه أدين إسكجم علينه واحد دجال ما يعني مجهده أو كسر عيد مدى حدودك كسي صار يعني مجهده wax afku dagaalamay afskaga celiyeen anigu ma jeedo Xasan Sheekh kunta idin sheega
hal mid ayuu ka baqayaa Soomaalnimo way ku jirtaa madaxweynaha waa sax qadiyada dhulka iyo inay ku jirtana waa laga yaabaa laakiin wuxuu ka baqaa wax loo yaqaano laba mid oo ka baqaa madaxweynaha idin sheegaa beesha caalamka iyo wuxuu ka baqaa beesha caalamka falcelinteeda sidii wax u sameyn doonto madaxweynaha wuu ka baqaa wuxuu kaloo ka baqaa in lagu qabsado xasuuqa geysatay ergaas wuu ka baqaa madaxweyne walba Soomaali soo maro Xasan Sheekh farmaajo niyo fuleenimadan aan Soomaali ku moogeen inta ka timid hadda fiiri siyaasi afwaarki dhageysiya siyaasi afwaarki Mareykankiya markuu isku day inuu ku eedeeyo siyaasi afwaarki inuu xasuuq geystay oo dad u dilay siyaasi afwaarki ma ugu jawaab taqaana Anyone who disagrees with them will have to be punished. For us, been a long experience, we've been able to face. eedadiin habartiin abshaxankiina buufkiina dhahay igaraal noqdo marka ciyaar camal oo hadla laakiin waa ku qasbanay siyaasi afwaarki wuxuu yiri eedadiin u sheeg aabihiin iyo xasuuqa geystay iyo wixii marka Xasan Sheekh labada ku hortaal Soomaali ina difaaciidana dhiiga ku bixi doona waa sax waa run ama Soomaali ha dhimato ama cadawga ha dhinto adiga caalamku waxay ku dhihi doonaan ma hadda ka walwalaysaa mise waxa ka walwalaysaa dalkan meesha uu ku dambeyn doono ayaa ka walwalaysaa labadaas horta noo soo madaxweyne noo soo kala caday qodobka saddexaad aan rabaa inuu ku soo gabagabeeyo oo siyaasi afwaarki uu isaga celiyay Etoobiyaanka ama Amxaaradii qodobka saddexaad ayaa wuxuu ahaay in uu heshiisyo la galo dal alaali dalkii asaga dantiisa ugu jirto oo dantiisa ka dhaxarku inuu heshiis la galo Shiinaha kamid ahay oo la fariistay Ruushka kamid ahay oo la fariistay Mareykan wuxuu yiri eedada u sheegay Allah siyaasi afwaaki iyo Mareykan saaxiibo ma ah Mareykan markuu kirif keenay xuquuq aadan iyo balay u meesha la soo istaagay siyaasi afwaaki wuxuu yiri iyo adiga naga taga Allah marka xasheeqo adiga Mareykan iyo Yurub ha ka baqin xilliga laga baqay reer galbeed way dhamaatay ana hadda kulay aniga soo muwaadin qof passport Mareykan wato Soomaali soo uma bareerin ina qaato dhalashada Mareykanka haade anigoo saas ayaa kuleh reer galbeed uu sii dhacaya calankooda ha ka welwelin haddii North Korea ee dan kugu jirto ee hub ku siinayso rasaas ku siin North Korea waaya Xasan Sheekhow u tag Pyongyang ka deg fulay ta Mareykan ka baqda wallahi billahi tala Mareykan Yurub ka baqdin kulligii xildhibaanada wasiirada madaxda ra'iisul wasaaraha ayaga dhan waa fuleeyeen ayagoo fuleenimadan la soo taagan dalka laga qaadanaya